macallimada si kale ugama baxsan karnee mana raahna islaantii dariska ahayd baa dhimatay alla waatan xilligaan aad ii leecaysaan naya halkan soo mara naa soo mara idinkaan la hadlayaa naa soo dhaqaaqa xaggee ku soo daahdeen macallin maama dariskaabaa dhimatay marka idinkuma dadka maydka dhaqaad tihiin macallin mar dambe soo daahi mayno meeshaan waxbarasho miyaa u timaadeen base waqti lumis baad u timaadeen macallin mar dambe soo daahi mayno na gowrac haddaan soo daahno istaag naayaa halkaa bar dambe haddaa u noqotid 10 jeer bay kugu dhacaysaa kaala naayaa abma socdo gala fasalkiina bal waa tii maalin dambe soo daahdo war waa maxay balowga meesha isqabsaday balo tiibaa saa kalaysay macallin war istaag wariya xagga u qabqadleeda soo istaag halkaan yaa xaggee soo istaagaa halkaan hortayda soo istaag war ileen balaayo haye waa kan waa taagnahay maxaa ileeda imise saac baa socotaa yaa waa barqa dheer saacad ma watee waxaad leedahay halkaan iskuul tahay adiguna aad arday tahay waa maxay xilligaad soconaysay maad ilaalisid waqtiga adaan kula hadlayaa maxaa iga fiirinaysaa adaanigu waa kuu sheegayo saacad ma haysan baan ku yidhi iskuulkana maalin baa la yimaadaa baa laygu yidhi aniguna maalin baan ku yimid habeenkuuba imaan ta kale aniga lacag baad iga qaadaysaa markaan kuu imaado inaad casharka ii dhigtid aday shaqadaada tahay anuu maadaan ku baryayaa soo lacag igaba qaadid maxaad noola imaanaysa bal fiiriyo muranka nooga leexa dariiqa war istaag wariya walwakaas isjir aniga mar dambe ballan baan ku qaaday sidaan ulkuugu wadanaa sarta dhulka kaa dhiga waraan waa inaad barataa waxaan kaa mudnahay ka waa inaad barataa ixtiraamka macallimiinta haddii kale ul baa lagugu fahansiinaya ammaanka miyaa furnaa maba arkayne day anigu maanaa hadal xunku iriyo edabdarra kuula imid waxaan ku yidhi arday baan ahay lacagna waan iska bixiyaa haddii aan hal maalin soo daahay maxay dhiboo leedahay maxaad ku soo daahday ma naqaan waxaan ku soo daahnay oran dagata kaala adigu meeshaan muxujaad u furatay mise waxbaad nagu baraysaa ma gabdhahaad baacsanaysay baad ii malaysay aniga diinullaahi 5 faroodba waa kugu sawiraya wiilow dhegaysa aniga shuruucda iskuulka u taallaan kuu sheegayaa kow waa inaa waqtigaaga ilaalisaa waa inaa ixtiraamtaa macallimiinta madaxadaygan miyaartaa inaa arday ku noqotid ma dhacaysa taas horta maba xuma shuruucda idinka idiin taalla inaad ii qeexdid laakiin ma inaad darbigaan iigu sheegtid baa mise waa inaan iskuulka tago shaqada yadaaba ah in adigu kala toosin intaan iskuulkaba geyn balalow waxaa sheegaysa anuu garan mayee aniga wax may baraysaa adigu arday adaablam noqonaysaa oo sharciga iskuulka ilaaliya dariiqa cidladaababa isbaara ii dhigatay muxuu yahay qaynuunku ma qof falan baa tahay horta inaad diraacbaa iskuulka iban ugi tashkiiliyey adigaa iskuulaa dhigtay maba imaadeenba bajulli dambe haddaa ii fudhid meelkahaad beelaysaa see weye hadal iguma soo celin kadhib bal subax dambe inta gurigaaga nabad uga soo kacayd aniga afka ila soo gal inaad iskuulka nabad ku tagtid god baad u hooyanaysaa wallaahi aamus adiga sidaan kuguma aqbali karna waaridkaa iyo cidda dibinka ahayd waana la timaadaa qof sidaan fawdo oo ah uma ogolaan doono iskuulka waxaad fidnaynaysaa ardada kale iyo magaca iskuulka naamaa joogtid wakaasa iga hor istaag adigu sidii ninkii inaan kuu dila anaan kutusaye ilmirig laa tahay anigu waa iska kaadayn karaa haddaad laakiin iga daba hadashid inaan xoog ku aadayo ogow gafuurka day ma anigaad ba hadal igu soo celisay war soo joog annagaas kaya waaline maanaa kula tegay ku dhagtay naa maxaa kuu geeya shaatiga yaga meenaa degdegada madaxa kula dhaca sawra kama dhalan oray igu soo yeer kulligood igu soo yeer bal inaan hal nin ka reebo magacayga kaliya haddaad u sheegtay inaysan kusoo raacayn anaa huba bal magacayga kaliya u sheeg inay kusoo raacaan alla maxaad faan haysa inaan meeshay joogaan inta anigu ugu tago meydkooda mid uga tillaabsadaad ka shaqaynaysaa waana helaysaa innaga waxay inoo tahay marka adoon waarid wadan iskuulka timaadid ma inaan hadda xoog ku galaad rabtaa waxaaniyo naa dumarnimaanu kugu ixtiraamaynaa ee halkaa maadan taagnaateena mar horaan dhulka kuu jar lahaa meeshana xoog ku geli lahaa waxaan kugu samayn karaad ogtahay basadiir wuxuu yahay dadka horta soo weydiiyo warshoog cidna wax ma yeeli inta yeelaan taa qaadid war ha nagu dhiban haddaad maanta iga badbaadid baa nasiib leedahay hor iskuulkaaga aad oo iga hortag tag duliyo naga hor dhaqaaq waxaan nahay waxba kaaba geline ma inaad nagu dhibatid baan rabtaa saaka maxay tahay waxaan maxaa nagu soo wareejiyey cidna wax ma yeeli ballan baan ku qaaday meeshana inaan xoog ku soo galaa inta joogtana cagta mariya ima taqaanid aniga kii isoo tashkiiliyey iyo midka xunkaayo amradka labadaba waa warayaa meeshaan dhigaya yaa i hor istaagi kara aniga naa iga hor dhaqaaq hadal ha igu soo celine war waxaaniyo buuri war waxaaniyo ma ku tubanaa naa ordiga tag war tag afka xoog layow soo aniga maaha isii sug intaa baangadayda soo qaadanayo halkaani haddaysan galdhiiga isku bedelin ninkii laygu sheegayba dhalin kol hore abwaan yidhi anna kii xigtaan ahay kumbiskii miyaa layga qubay kolayga ii buuxay maantana kataantii miyaa layga kala tuuray kob abaara oo dhexe miyaa koora ila meeray kub miyaan ka jabay biixi aan kabayo loo hayn wargabaygaas afkaa iga xaday oday waxaan ahay la nool taariikhihii hore iyo gabayadii raggii hore ilaahow kuwaas jannadii ka waraabi waa idin salaamay maalin dhoweed waxaan idin idhi ha loo codeeyo filimkan magacii loo bixin lahaa maadaama uu hordhac yahay
magacyo badan baa runtii la bixiyey, aad iyo aad baa lasoo xilqaamay, aad baanan ugu mahadcelinayaa bulshada dhan. 1200 oo qof baa codaysay. waxay ahayd waqti aan mas-uuliyadda filimkaas idinka gacanta idin geliyey iyo sidoo kale inaad usoo magac bixisaan. waxaad doorateen qof ka mid ah 1200 oo aad siiseen codkiina, qayb idinka mid ay codkiina siisay. haddaba waa kuma qofkaas? waxaan rajaynayaa inaad ila dheehateen ninka dhalinyarada magaca uu bixiyey, qayb idinka midana horay aad codkiina isaga u siiseen. way jiraan runtii magacyo ka soo jiidasho badan markaan eegay qoraalka xaggiisa, laakiin inagu horay baan u wareejiyey mas-uuliyadda oo waxaan iri qofka ugu sarreeya ama qofka ku xiga baa iska yeelan doona. taasina waxay kaliftay in idinku aad ninkaan u codaysaan, aniguna aan qaato codbixintiinnii, sidaasna aan ku aqbalo. ugu dambayntii, anigoo idinka mahadcelinaya habka wanaagsan oo aad ii taageerteen, baan mar kale waxaan idinka mahadcelinayaa inaad taageeradii ugu weynayd u janjeeriseen xagga iyo YouTube. waan arkay dhanka Facebook inta badan uma badnin hadda, laakiin YouTube-ka muuqaaladu malaayiin ka degmayaan.